السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وأنيقو حمزة عمرة. maanta saxaabi waxaad kusoo dhawaataan video yar oo aan ku arki doono qaabka fiidiyoda loo edit gareeyo inagoo isticmaalna Movavi video editor. Gaar ahaan waxaan edit gareyn doonaa video backgroundgiisu yahay green. Okay, hadda haddii aan furo xagaas e4 waxaad aragtaa kanaan ku practice gareyn doonaa lionkan waxaad aragtaa inuu backgroundgiisu yahay green. Marka qaab yar oo easy ah adoo isticmaalaya Movavi video editor qaabkii aad u remove gareyn lahayd greenka ayaan arki doonaa oo sidoo kale aad uga dhigi lahayd sawir alaala sawirka aad rabto background. For example labadan background baan inagu noo soo diyaariyay iyo videogan saddexdan video waan wada arki doonaa insha Allah. Kan lionkan ayaan uga dhigi doonaa labadan sawir mid ayaan ka dhigi doonaa backgroundgiisa. Marka insha Allah Movavi video editorka aan isticmaalayo waa 21. Okay, waxaan sameyn doonaa kow inaan kusoo dhex darsado videoga aan rabo inaan edit gareeyo iyo sawirka aan backgroundgiisa isticmaalayo inaan media binka kusoo dhex darsado. Waxaan sameyn karaa add file inaan dhaho sidoo kale inaan file add media file aan dhaho. Okay, marka maxaan sameyn kow sidoo kale waxaan karayaa si aan ugu soo darsado inaan saa usoo share gareeyo sawirkii iyo lionkii ama videogii aan rabay inaan ka dhex shaqeeyo on dabadeedna aan saa usoo jiido aan saa ugu soo dhex tuuro baan aan kusoo dhex tuuro. Okay, haddaba videogan xagan aan previewgeena ka aragno waad aragtaa backgroundgiisu waa green. Sidoo kale labadan sawir mid ayaan u isticmaali doonaa ama labadaba waan arki doonaa qaabkaad background uga dhigi lahayd. Okay, marka kow waxaan sameyn doonaa si aan videogan u edit gareeyo oo wax uga bedeli karo oo u cut gareyn karo oo speedkiisa wax ugu dari karo amaba maxaan dhahay greenkaas uga remove gareyn karo. Maxaan ku qasbanahay kow inaan track aan kusoo dhex darsado yacni video track ama timeline-ka aan soo dhex gashto videoga media binka inoo yaala in isla faanaan u malayntaas. Dabeedna waxaan sameyn doonaa waan soo jiidi doonaa timeline-kii baan saa ugu soo darsan. Timeline-kii markii kusoo darsaday hadda waxaan karayaa inaan cut gareeyo inaan rotate gareeyo inaan crop gareeyo inaan adjustment-giisa saxo inaan waxyaabo badan ka bedelo. Marka inagu qasdigeena wuxuu yahay inaan greenkaas ka bedelno. Muxuu noqon doonaa greenka inaan ka bedelno. Kow greenka si aan uga bedelno waa taqaanaa Photoshop-ka si aad sawir PNG uga dhigto background kala u siiso waxaad u baahan tahay inaad transparent ka dhigto. Sidaas la mid ah transparent ayaan ka dhiganaa. waxaanu kaga dhigi doonaa inagoo isticmaalna chroma key tool la dhaho ku dhex jira xagan. Kow si aad chroma keyga u tagto maxay noqon inaad bartaa tagto more tools. Okay, dabeedna video editing aad daaqada yara furto xagan maxay noo soo baxaya baan xaganna waad aragtaa video editing waxaa ka soo dhex baxaya baan stabilization animation chroma key ama xagan baa haddaad baadho chroma key. Marka inagu waxaan u baahnay chroma keygaas حاجه نحول ايه place the clip onto the overlay track يعني صادق بكل ايه background واحد يستعمل له overlay use the color picker tool the grab a color from the image. marka hadii مثلا color picker kan wax kala maahan يعني hadii imika cadaan oo kala haystid intaad click soo tiraado ayuu ku soo doori dadna ay tolerance-ga aad badin doontaa يعني 90 tolerance-ga ayaad 90 80 يعني inta uu taagan yahay baad ka badin doontaa ka bacdi sawirka videogaagu transparent uu noqon doonaa. marka inagu waa green application-kuna muxuu yaqaanaa greenkaas colorka uu iska yaqaanaa already uu noo dooray ka dhigan tahay. marka haddii aan xaggan wax ka yara bedelo aan ama saa u yara jiidno oon sidaa u yara taabano maxaad arkaysaa in uu transparent noqday yani inuu sawirkan aynu videogan iminka transparent yahay in kale waxaan kala garanaa haddii aan background usoo sameyno. si aan background ugu soo sameyno waa taqaanaa video editorka markaad isticmaalaysid laba shay markaad dul saarayso overlay aad sameynaysid in aad overlay aad isku soo sameyso oo yani media yani aad maxaan dhahay kan key background uu noqonay aad timeline ku soo darsato. marka mesela haddaan imika sawirkan aan doorto aan ku soo darsay isdhaho waxaad arkaysaa inuu xagga hore ka galayo haddaan xagga dambe yani xagga dambe saa ugu soo turno inuu xagga dambe ka galayo gadaal uu ka galayo iyo horaan. marka inagu saa ma rabno waxaan rabnaa inuu background inoo noqdo. qasab maxaan ku qasbanahay inaan track cusub abuurano ama video track cusub waayo waxaad taqaanaa sawirada iyo videogu hal video inay yani hal track ay galaan. marka xagan maxay noo galay text xaga waa sound kana waa videogi. marka videogi haddaad video kale soo garab gelinayso yani waad kartaa optionka waad haystaa laakiin si aad overlay u samayso ama aad dul saarto ama background aad iskaga dhigto maxaad u baahan tahay inaad track cusub aad abuurto. okay, marka maxaan samayn doonaa bartaasaan click dhahaynaa add video track baan dhahaynaa. okay, add video track. marka inagu waxaan kusoo darsan doonaa video trackgeena wax kale ma waa sawirkaasaan kusoo darsan doonaa image 87 waxaan sameyn doonaa isna waan soo baangarayn doonaa saasaan ugu soo dhex tuuri doonaa. marka hadda waxaad aragtaa inuu overlay yani dusha soo maray. qasbiyan inagu maxaan u baahannahay in uu videogan aan transparency-ga aan kasoo dhiganay uu korka soo maro
oo sawirkana background inoo noqdo. Marka si aan u samayno waa inaan isku bedelno dee oo kana aan kor ka marno yacni kaas sawirka hoosta soo marno videogana aan kor ka marno si aan taa u samayno maxaan samaynaa in aad sawirka saa usoo jiido oo bartan aad soo garab dhigto dabeedna videoga aad jiido oo traagii korka aad geyso. Hadda maxaad aragtaa in sawirkaagii uu background ku noqday videogii aan transparent kaga soo dhignay chroma keyga uu dee sawirkii background u noqday. Hadda maxaad actually aragtaa in greenkii laga remove garay sawirkiina background inoo noqday. Sawirkuna goormuu background inoo noqday markaan hoosta soo marnay. Hadda maxaad karaysaa in aad baangarayso oo yacni jijiido oo meesha ku habboon aad u jijiido. Marka inagu matalan dhexdaaba aan center ku adjust garayno okay bartaasaan ku daayay dabeedna haddii aan display gareeyo maxaad aragtaa videogii inuu inoo daarmayo okay sawirku waxaad aragtaa framekiisu inuu yaryahay yacni bartaa ku joogo markuu sawirku dhammaado in intaa kale uu transparency iskaga soo noqonayo. Marka si aan uunan transparencyga inoogu noqon yacni videoga si markaan export garayno amaba aan save garaysano uu full dhammaantiiba sawirkaas background uu noogu noqdo maxaan samaynaa in aan sawirkii videoga isla gesano. Maxaan samaynaa marka in aan bartaa dul tago dabeedna aan saa soo jiido oon ilaa xaggaa keeno okay dabeedna haddii iminka aan soo display gareeyo maxaad aragtaa in videogii iyo sawirkiis leeyihiin sidoo kalena background saxa oo u noqday marka chroma keyga haddaad ku noqoto ood capacitygii iminka videoga aan doorano ood capacitygii iminka yara badbadiso maxaad aragtaa in sawirkii xagga shadowgiisa iyo hadhkiisa yara badbadanayo. Markaad waxaad samayn doontaa intan noisekan edgeskan ka dhex shaqeey haddii iminka edgeska soo kale aad green ku yara aragto ood ka yarayn noiseka dhammaan saa u yara baadhbaadh adaa video editora. Sidoo kale waxaan arki doonaa waxaad kala kusoo dari kartaa iminka video kale videogii matalan haddii aan tago shimbirta ahaa shimbirtan oo kale haddii aan kusoo dhex turto biinkaygii oon dabeedna kusoo dhex tuuro on track cusub abuurto video track aan dhaho dabeedna aan saa usoo dhigo oon dabadeedna chroma keygi tago oo videogii ii dooran aan dabadeedna aan saa u yara jiido ama yara taabto okay saa u yara taabto ama bartan aan ka dhigo 82 waxaad aragtaa in sawirkeeni inoo noqday transparency. Maxaan ku garanaa haddii imkaan iska damino backgroundigaan iska damino waxaad aragtaa in uu transparent inoo noqday backgroundigaan iska damino transparent inoo noqday. Marka transparent marka inoo noqdo xagan inta actually backgroundigaad hoosta ka mariso ayuu qaadan doonaa. Marka inagu sawirkeena haddaan shidano waa kan backgroundiga inoo noqday shimbirteeni matalan haddaan rabno inaan saa u yara durkino waxna ka yarayna ama weyn maadaama inagu weyn tahay oo ciriiri inagu noqotay libaaxi iminka matalan haddaan shido libaaxi iyo iyadii baa isdul fuulay sooma. Marka waxaan rabaa shimbirta inaan yaray maxaan samayn overlaygaasaan tegi dabeedna shimbirtii baan dooran okay dabeedna shimbirtii baan tegi waxaan jeedaa overlaygi markaan doorto shimbirtii baan dooran okay click leh waxaad aragtaa in aad kor inoogu soo qaad kow shimbirtii noo dooro dabeedna overlaygi baa noo dooran dabeedna waxaad samayn kartaa in aad yaryarayn karto okay in aan saa u yarayn karno oon baan dhihin karno oon saa ilaa meelaha ku adjust garayn karno. Haddii actually iminka videoga shidno maxay ka dhigan tahay inoo soo waxay xagan madowga yaran aragno waa maxay overlayga aan isticmaalay ayaanu ka dhignay maxaan dhahay picture in picture marka overlap aan dhahno okay overlap aan dhahno yani full screen igu soo muuji weeyaan haddii kale madow yar buu xaggaa iyo bartaa inoogu sameyn. Marka sawirkeeni videogii waxaan jeedaa actually waxaad aragtaa inuu nala socdo weli madowgii side to side haddaan dhahno matalan kan oo kale aan meelaha side to side dhahno qaab side to side buu inoo noqon doonaa. Waxay noqonaysaa maadaama aan soo yaraynay oo videoga laftiisa maxaan dhahay crop u baahnaa matalan haddaan soo crop garayno madowga aan kasoo dhex saari karnaa. Marka madowgii nala socday actually ma ahayn overlayga wuxuu ahaa videoga madow ula sii socday. Marka haddii iminka waxaad aragtaa in videogeeni haddaan saa u doorano oon overlaydiina doorano in aan overlaydiina doorano in aan soo yarayn karno oo bartaas sidaa usoo yarayn karno oo ilaa meelaha saa kasoo dhigi karno dabeedna haddaan videogeeni display garayno aan arkayno shimbir xagan dhaqdhaqaaqaysa oo markii hore backgroundigooda ahaa green iyo sidoo kale lionkeeni oo backgroundigiisa green ahaa. Marka shimbirta maxay nooga istaagtay dee framekeeda yar oo bartaa ma soo gaadhayso marka intaas waa qaabka yani easy way aad uga remove garayn karto green screen video aad haysato sidaas lamid haddii sheekh ka duubayso marac madow cagaara aad usoo dhigtay
qaabka aad ugu remove garan kartid waa qaabkaas intaad tagto more tools chroma key aad dabadna xaggaa yara taabato capacity iyo waxyaabaana aad ka dhex shaqaysato sidaas si lamid ah sawir ama video maxaan dhahaa green screen keliya tamaan hadduu cadaan yahay axsaan yahay maxaad samayn color picker-kaasaa dooran waad dooran dabadeedna transparent kaaga dhigi sidaa aan iminka samaynay ayaad maxaan dhahay background-iga sawir alaala sawirkaad rabto aad isticmaali doontaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu